cali ducaale ayaa noqday Soomaaliga ugu horeeyay ka mid noqda baarlamaanka gobolka Nova Scotia ee dalka Canada. ninkan oo horey uga shaqayn jiray dibadamiska ayaa haatan noqonaya xildhibaanka ugu horeeyay ee gobolkaasi ku metela Soomaalida iyo dadka kale laga tirada badan yahay. haddaba guushan uu gaaray waxa uu uga warramay wariye Axmed Mursal Xuseen. marka hore xilkan aan ku guuleystay waa xil dowlad goboleedka wadanka Canada gobolka la yiraahdo Nova Scotia sida afka qalaad lagu yiraahdo waa MLA Member of Legislation Assembly gobolka Nova Scotia la yiraahdo. horey kursigan aad ku guuleystay ma jiray qof Soomaali ah oo gobolkaasi kaga guuleystay ama horey xil uga hayay? qof kale oo Soomaali ah oo halkan ka baratamay ama wax siyaasad ah ama wax guddi heer sare ah oo gobolkan aan joogo uga jiray ama haddaba ku jira ma jirto. ma jiro walaal ogaantayda qof Soomaali ah oo wadankan aan deganahay gobolkan aan deganahay iyo magaaladan aan deganahay wax mas'uuliyad ah kasoo qabtay. adiga ka cali ahaan maxay guushani kaaga dhigan tahay? guushan sidaad og tahay wadankan qof soo galooti ah ayaan ku ahay. qof waxaan ahay siyaabo kala duwan u wata magac, hadday tahay soo galooti, hadday tahay dadka madowga, hadday tahay diinta islaamka oo aan aaminsanahay, marka hadday tahay shakhsi wadanka xuquuq ku leh. arrimahaas oo dhan marka la isku geeyo waa mas-uuliyad culus weeye, waana arrin aan aada ugu faraxsanahay. runtii guul ii qaasa ma aha, waa guul dadka Soomaaliyeed meel walba adduunka ku nool yihiin guul oo ah muhiimadeyda ugu weyn ama goolkayga ugu weyn. arrintan igu kalifay ama aan ku tala jiro waxaa weeye jiilka soo socda inay helaan cid tusaale u noqota. caliow dabcan haatan waad guulaysatay, Soomaaliga ugu horeeyay xil caynkan ku guulaysta ayaa tahay sidaad ii sheegtay. marka maxaad u qabanaysaa dadkii ku soo doortay oo Soomaalidu ay ku jirto? dadka horta isoo doortay Soomaalidu aad bay ugu yar tahay, kama badna ilaa 10 qoys marka loo fiiriyo xaafadda laga soo doortay dadka kale oo ku nool. marka mas-uuliyadeydu mas-uuliyad caam ah oo dadka deegaankaas degan iga saaran weeye. ummadda Soomaalida oo degan xaafaddaas u goonida ahna waa dadan usoo shaqeeyey ilaa iyo 10 sano lasoo dhaafay. program waxaan sameeyey dadka dhalinyarada ah oo basketball ah oo iswimming leh oo leh tababaro. waana arrimaha ii suurageliyey meesha aan maanta joogo inaan soo gaaro oo wadankan waxa ka jira, baahida jirta iyo waxa dadka loo qaban karo aan kusoo ogaaday. wixii dambe oo hadda maadaama aan qof loo doortay aan ahay ama xaalada ama dhiba oo la soo gudboonaadana diyaar baan u ahay waxqabadkeeda. runtii doorashadan waa doorasho heel gobol ah ama provincial sida loo yaqaano. waa doorasho ka dhacda gobolkan 4 sanaba hal mar. waxaan ka mid ahay xisbiga liberalka la yiraahdo. sideedana waxaan horey u ahaa nin communityga u adeega, howlo badan iyo mas-uuliyad badanna kasoo qabtay. shakhsiyan ahaan waxaan ahay firefighter, professional firefighter, dadka dabka la dagaalama. waana shaqo full time ah oo aan kusoo jiray 17 sano hadda lasoo dhaafay. horta xaafadda laga doortay school ayaa ku yaala aad u da'weyn, runtii una baahan dayactir keliya maahana in dib loo dhiso. waana meelaha COVID-19 uu dadka u tusay dhibta ka jirta. macnaha aan ka wada dhibka ka jirto waxa weeye darishado badan oo ciyaalku ay qoraxda miftiinka ka arki karaan ma lahayn. wuxuu ahaa building aad duqur ah oo air condition iyo waxyaabaha qaboojiya aan lahayn. horta xaafadda laga soo doortay arrintaas ayaa waxay iga tahay number 1. dadka meesha ku nool deegaankana waa arrin ay ila qabaan. midda labaad, gobolkan waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo anti-Islamic legislation in la approve gareeyo. macnaha sharci ka hor imaanaya ee islaam nacaybka. oo 3 xisbi oo gobolka ka jira, 3duba ay isku raaceen. walow hadda aan la hirgelin arrintaasna arrin waxaa weeye aada iigu weyn. inkastoo nasiib darro xisbigayga uu
aan la dooran oo uusan hadda ahayn xisbiga doorashada ku guulaystay haddana cod baan leeyahay member baan ka ahay legislationka marka arrintaasna waa arrinta labaad arrinka saddexaad haddee waktiga lagu jiro awgood waa wakti aada u adag COVID-19 arrinkaasna wax badan oo dhiba ayaa dadku ama ha noqoto guryo la-aan ha noqoto ama ha noqoto isbitaaladii iyo caafimaadkii oo wax badan oo duldulaalaha kasoo baxeen arrinkaasna waa arrinka saddexaad oo igu weyn howlaha ay hor yaallaan